ciidamada Jubaland militia dowladda Mareykanka waxaan yiri dowladda Kenya yaa 1.5 million dollars bil kasta bixisa oo loogu talagalay mushaarkii milishiyada Jubaland loo hagaajiyay ciidanka loo hagaajiyay Jubaland forces afan sama oo dagaalkaba ka bilaabay dadkii KDF ay la qabatay maxay ahayd gobolka oo dowladda ka bilaabeen ilaa meel kasta ilaa maartay Ismaaciil ay gaaray 1.5 million dollars haddii ciidanka loogu talagalay inay tahay $200 shakhsigiiba 7,000 oo ciidan ay si fudud u bixinaysa wali lacag ba ka soo haraysa sidoo kale inay 7,000 ay tahay dhaqan baa iska jira Soomaaliya oo dhanba meel allaale meesha ciidan laga hagaajiyay ragga madaxda inay tirada ay aad kor ugu qaadaan safiiga ay meelahaas waxa uga soo haray lufluf uga soo haray marka waxa dhabtay aan ma garanay laakiin waxa qoran waa inay 7,000 ay yihiin 1.5 million dollars Kenya ayaa bixisa bil kasta way fahamsama Kenyana waxa weeyaan Amisomna way ka heshaa oo waxay ahayd oo contingent meesha joogtay Mareykankana way kaalmayaan marka in aad uga fara badan bay Kenya ka heshaa ku jirista ay ku jirta Soomaaliya oo waliba gobolkan hadda maxay ahayd hadda way Amisom waa hated bay yihiin laakiin iyaga 1.5 million dollars bay siiyaan toos u siiyaan maamulka ka jira Jubaland oo Kismaayo ka dhisan marka aan saa ku leeyahay ciidamada waa kan in shay 20,000 bay kor dhaafeen ciidamada gobolka Jubaland kali ku soo kariya aniga waxaan rasmi ka hayaa waliba mukhaabaraadkii Jubaland shakhsi kamid ah oo qof sare inay waxa meesha ku jiro dhan 1500 in gaarina al-shabaab 1500 ayaa wixii ka baxsan magaalooyin dhowr ah Kismaayo Qooqani Afmadow Taabda Doobley waxa ka baxsan inta kale oo dhan beega xukumaan marka wax ilaahay untay oo howlgal oo lagu sameeyo ma jirto dhankan gadana baardheer marka dhaafto inta kale hoos oo dhanba Bu'aale Saaku maxay ahayd Hargeysa Kuusow ilaa iyo Jilib iyo Jamaam iyo kulli waxa maamushaan manka la yiraahdo al-shabaab marka ciidanka saa u fara badan dhaqaalaha saa u fara badan dhuxusha la karina la dibahayo oo maaragtay wadankii oo dhanbo la xaalufiyay imaaraadka maxay ahayd waxaan loo raadsanay ciidanka ka badan iyadan iska imaato